بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو waxaan daawadayaal meel walba ka joogtaan dunida dacaladeeda caawa waxaan nahaynaa sheeko cajaa'ib ah oo ku saabsan markabka weyn ee alla weyn ee dowladda Turkiga ay soo bandhigtay shalay xarigana laga jaray caawa taariikhdu oo ay tahay 24 bishii 2023 anoo Axmed Maxamuud ayaa nala socodsiinaya warka caawa gabi ahaantiisana wuxuu ku saabsan yahay markabka cajaa'ibka ah ee soo bandhigtay dowladda Turkiga markabkan oo qaada diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan oo gaaraya ilaa 30 diyaaradood sida kuwa droniska ah iyo kuwa diyaaradaha dagaalka ah sidoo kale wuxuu qaadayaa diyaaradaha helikobtarada iyo baabuurta gaashaaman ee ciidamadu leeyihiin ee qalabka sida daawadayaal markabkan shalay waxaa xariga ka jaray wasiirka gaashaaniga dowladda Turkiga sidoo madaxweyne Erdogan uu ku amray sidaa daraaddeed madaxweynaha dowladda Turkiga uu ka daawanayay qasriga madaxtooyada oo xeebta saaran magaalada Istanbul asagoo wehelinayaan kumanaan shacab ah iyo saraakiisha dowladda sidoo kale madaxweynuhu wuxuu fariin coda uu kala hadlay markabka gudihiisa shaqaalaha markabka saaran iyo saraakiisha iyo ciidamada halkaa ku sugnaa iyo wasiirka gaashaandhigga wuxuuna u ballan qaaday shacabka Turkiga iyo ciidamada qalabka sida haddii eebbe idmo in la bilaabin doono markabka ku xiga oo laba jibaarkiis ka weyn dhawaan wuxuuna yiri waxaana kala hadalnay in hawshiisa maaragtay si dhaqso badan loo dirdirgeliyo dowladda Isbaanishka iyo dowladda Ingiriiska waxaana noo ballan qaaday inay caawin doonaan oo garab istaagi doonaan sidii loo sameyn lahaa markab laba jeer ka weyn markabkan daawadayaal markabkan dowladda Turkiga soo bandhigtay waxaa la leeyahay waa markabkii ugu horreeyay ee adduunka qaada diyaaradaha drone ah dowladihii reer galbeedka badankooda iyo duniduba uu ka yaabiyay markabkan waxaa madaxweyne Erdogan oo dhawaan doorasho gelin doona eebba soo celiya mar labaad waxqabadkiisa ka mid ah dhawaan uu soo saaray baabuurka ku shaqeeya elektarooniga haddana uu soo saaray markabkan waxaa ka soo horreeyay diyaaradda drone oo nooceeda u dhiganta F-35ka Turkiga wuxuu hadda ku tallaabsaday horumar baaxad leh xagga tiknoolajiyadda xagga awoodda ciidamada xagga wax soo saarka beeraha xagga waxa weeye dayax gacmeedyada iyo elektarooniga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sidaa daraaddeed tiknoolajiyadda hadda uu Turkigu soo saaray waxaa la leeyahay dunida oo dhan way ka yaabisay maadaama dunidu ay qalab culus ay isticmaali jirtay horay haddana Turkigu la yimid qalab elektarooniga arrinkaas oo loogu tilmaamay inay horseed u tahay xukuumadda madaxweyne Erdogan oo hogaamiyo dunida islaamkana aad looga jecel yahay sidaa daraaddeed shacab kumanaan gaaraya ayaa shalay isku soo banaanbaxay magaalada Istanbul oo markabka u soo daawasho tagay waxayna mahad u celiyeen eebbe iyo madaxweyne Erdogan iyo xubnaha ka tirsan dowladdiisa iyo aqalka sare ee baarlamaankaba shacabka ayaa la dhacsan tillaabooyinka oo hadda ay ku tillaabsanayso xukuumadda Erdogan ee horumarinayso tiknoolajiyadda waddankaasi iyo kaabayaasha dhaqaalaha dhawaanna waxaa lasoo saari doonaa gaaska noocyadiisa kala duwan siduu madaxweyne Erdogan sheegay daawadayaal arrinkan waxay jawaab u tahay dowladihii rabay inay ka dhigaan dalka Turkiga sida Sacuudiga iyo dowladaha khaliijka oo ayagu haba yaraatee galaas biyo lagu shubo aan samaysan karin haba yaraatee koolgad iyo buraash lagu cadeedo midna aan samaysan karin saxan cunto lagu cuno aan samaysan karin waxa weeye wax walba dibadda ay uga yimaadaan Turkigu maanta wuxuu ku tallaabsaday horumar la gaarin karo kana fiican dowladaha reer galbeedka midka ay haystaan oo kale wuxuuna madaxweyne Erdogan uu ballan qaaday dhinac walba in lagu horumarin doono shacabweynaha Turkiga aqoonta iyo tiknoolajiyaddana loola wadaagi doono dowladaha islaamka hadalka madaxweyne Erdogan ayaa ku soo beegmaya dhawaan iyadoo la filayo in doorasho loo dareero haddii eebbe idmo bisha shanaad bartamaheeda mucaaradka dalkaas ayaa wajagabax ka muujiyay shalay dowlatuska ay soo bandhigeen ciidamada qalabkooda kala duwan ee badda waxaa la leeyahay ciidanka baddu waxay u baahan yihiin ciidanka cirkan wuxuu u baahan yihiin ciidan bada oo xooggan oo mahmaah iyo saraakiisha iyo khubarada kala duwan ee reer galbeedka waxay leeyihiin Turkigu wuxuu gaaray horumar dowladihii reer galbeedka waxay ku mashquulsan yihiin marba inay dalku duulaan marba inay meel colaad ka aloosaan sidaa daraaddeed daawadayaal waxay la daawataan oo ku soo dhawaataan qaabka markabkan xariga looga jaray shacab kumanaan oo markabka dushiisa saaran oo ku dabaaldegaya oo ku iidaya oo faraxsan oo sawir ku gelaya halkaas iyo faamilo fara badan oo carruurtooda wata daawadayaal arrinkan waxay tusaale u tahay dunida islaamka inay ku dayato horumarka uu gaarayo iyo tiknoolajiyadda uu ku socdo dowladda Turkiga